kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah khasaaraha qaraxii Soobe oo sii kordhaya iyo wararkii ugu dambeeyay qaraxaasi oo ay kooxda argagixisada la beegsatay dad shacab ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sirdoonkiisu yahay Mahad Salaad oo ka hadlay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho isagoo mar kale canaantay ganacsatada Soomaaliyeed qodobadaas iyo kuwa kale intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan aynu ku bilowno wararkeena waxaa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay qaraxyadii maanta ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda isku darka dadka ku geeriyooday ayaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 50 qof inkastoo dadka loola kala cararay xarumaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho oo aad u badan dowladda Soomaaliya ilaa iyo hadda sooma bandhigin tiro koobka rasmiga ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi maanta balse warbaahinta ayaa helaysa xog aad u kooban oo ka imanaysa goobaha caafimaadka wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa qof ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka Madiina ayaa warisay meydadka in ka badan 30 qof in la geeyay isbitaalkaasi sidoo kalena tirada dhaawacyada ee la geeyay Madiina ayaa intaasi ka badan isbitaalka Digfaar iyo Somali Sudanist ayaa sidoo kale la geeyay meydad iyo dhaawacyo aad u badan oo cid tiro koob rasmi ah ku samaysay ayna jirin isbitaalada kale ee ku yaala wadada weyn ee Maka al-Mukarrama sida Al-Caasima ayaa sidoo kale la dhigay meydad iyo dhaawacyada 10 dad ah caruur haween iyo dhalinyaro waxbaratay ayaa u badnaa dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi oo ka dhacay isgoyska Soobe xilli uu maanta aad mashquul u ahaa 10 gaadiid ah oo baajaaj u badan iyo goobihii ganacsiga ee aagaasi ku yaallay ayaa burburay halka ay dadkii noqdeen wax dhintay iyo wax ku dhaawacmay qaraxaasi kooxda argagixisada oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi ayaa ku andacootay inay weerartay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxayna kooxdu ku faantay inay dishay dad gaadhaya 24 qof labadan qarax oo ka dhacay bannaanka hore ee wasaaradda waxbarashada ayaa loo adeegsaday gaadiid ay wadeen kuwa naftood halligayaal ah mid walba wuxuu geystay khasaare baaxad leh waxayna kooxdu bartilmaameedkeeda ku sheegtay wasaaradda waxbarashada iyadoo dowladda xasan sheekh maxamuud sirdoonkeeda aad loo dhaliilsan yahay haatan aynu fiirino madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay qaraxyadii maanta ka dhacay isgoyska Soobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horreyntii ka tacsiyeeyay geerida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee birmageydada ah ee maanta argagixisada shabaab ay ku xasuuqday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa tilmaamay in culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradda awqaafta iyo diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee 5 cisho ee la soo dhaafay si wada jir ah ay uga doodayeen hannaanka la dagaalanka fikirka xagjirka ah madaxweynaha ayaa sheegay in taasi ay ka turjumayso dhibaatada iyo xanuunka kooxda argagixisadu ay u geysatay dadkeena Soomaaliyeed iyo been abuurka ay ku sameeyeen diinteena suuban maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii caddaanaya arxan darrada iyo cadaawadda khawaarijta ah ay u hayaan qof kasta oo Soomaaliya qarax dil iyo xabado la riday ceelka la gubay masaajid la duminayo maatada la gumaadayo dhammaan lacagtaad bixisay baa qayb ka ah ee ogow qofkii argagixisada lacag siiyo ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay xasan sheekh maxamuud ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay culimada Soomaaliyeed ay si cad ugu oogeen xujada khawaarijta taasi oo daaha ka rogtay qiil kasta oo ay ku hoos gaban jireen kagana been abuuran jireen diinteenna suuban ee Islaamka maanta ma jiro hal qof oo uu shaki uga jiro qorshaha rasmiga ee kooxda argagixisada inuu yahay xasuuq iyo gumaadka dadkeenna laakiin taasi uma hirgelayso idama leh dalka waan ka sifayn doonaa ayuu yidhi madaxweynaha ayaa alle uga baryay dhammaan muwaadiniinta ku shahiiday qaraxyada argagixisanimo ee kooxda khawaarijtii kula beegsadeen Soobe inuu fadhigooda ka yeelo jannatul firdaws inta dhaawacana uu siiyo caafimaad degdeg ah